kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah saraakiil u dhalatay beesha mareexaan islamarkaasina ay isku heeb yihiin madaxweyne farmaajo oo ka kooban 6 sargaal ayaa lagu dilay intuu dhexaysa Gurceel iyo Balanballe saraakiisha oo iskugu jira kabtano iyo korneelo waxaa laayay maleeshiyo beelad u dhalatay beesha ceer habargidir saraakiisha ayaa loogu aaray saraakiishii farmaajo uu ku laayay guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kuwaas oo kabahooda lagu aasay si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya xasuuqa loo geystay saraakiisha qaraabada leh madaxweyne farmaajo islamarkaasina aanooyin qabiil halkaasi loogu dilay waxaa weerar lagu qaaday gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya xilli ay ku sii jeedeen degmada Balanballe oo ka tirsan gobolka Galgaduud kana baxeen degmada Gurceel ciidamadani oo ka tirsan xoogga dalka ayaa ka baxay xirada tababarka xoosh ee degmada Gurceel maleeshiyaad hubaysan oo sida wararku sheegayaan ka soo jeeda degmada Gurceel ayaa dhexda u galay islamarkaasina halkaas daakum ka dhigay wararka ayaa sheegaya in weerarkaasi lagu dilay 6 sargaal waxaana magacyadooda lagu kala sheegay 1 gaashaanle Dhagaqool Yuusuf 2 gaashaanle Cabdi Gunagune 3 2 xidigle Faarax Jaamac Colaad 4 kabtan Shariif Cirro Maxamed 5 gaashaanle Gaangul Xalane 6 kabtan Saciid Xasan Faley sidoo kale waxaa jira saraakiil nolol iyo geeri intaba lagu laayahay kuwaas oo magacyadooda lagu kala sheegay ayagana 1 2 xidigle Qalbi Indhataag 3 gaashaanle Ceyro Warsame Xasan iyo kabtan Suldaan Dirir saraakiisha ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya oo dhammaantood isku beel ahaa ayay wararka qaarkood sheegayaan in loo dilay falal la xiriira aanooyin qabiil oo waayadii dambe ka jira beelaha dega Gurceel iyo Balanballe madaxda galmudug saraakiisha qaybta 21aad ee militariga Soomaaliya weli kama hadlin weerarkaasi waxaana ciidamadii ku dhintay la geeyay degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud si kastaba ha ahaatee aanooyin qabiil oo xoogan ayaa lagu qaaday saraakiil ku hayb ahay madaxweyne farmaajo isla markaasina halkaasi gabi ahaanba lagu xasuuqay wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi loo aanaynayo weerarkii lagu qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gurigiisa isla markaasina 6 nin oo askar ama waardi u ahaa halkaasi lagu dilay kabahoodana lagu aasay si kastaba ha ahaatee 6 nin ee guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame lagu dilay ayaa iminka 6 nin loo aaray ay wararka qaar sheegayaan si kastaba ha ahaatee weli galmudug kama hadlin wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa galmudug waxa ay ka dhahaan saraakiishii halkaasi madaxweyne farmaajo ilma adeeradiisa ahaa lagu xasuuqay dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo beesha caalamka u dirtay codsi la xiriira Kenya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka dalbatay in loo madax banneeyo oo aan la soo faragelin go'aanada ay ka qaadanayso dalalka dariska la ah Soomaaliya si gaar ah dowladda Soomaaliya waxay beesha caalamka ugu dalbatay in aan la soo faragelin khilaafka diblomaasiyadeed ee haatan kala dhaxeeya dowladda Kenya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa dalabkaasi ka jeediyay fadhigii lagu soo xiriyay shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka dhacay Muqdisho wasiir Maxamed Cabdirasaaq ayaa xubnihii shirkaasi ka soo qayb galay ee beesha caalamka u gudbiyay dalabka dowladda Soomaaliya ee ahaa in la soo faragelin go'aanada dowladda Soomaaliya ay ka qaadanayso siyaasadda arrimaha dibadda iyo la macaamilka dowladaha dariska la ah qaranka Soomaaliya mar walba dowladda federaalka Soomaaliya waxay xushmeynaysaa madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dowladaha dariska la ah Soomaaliya si la mid ah ayaa annagana ka doonaynaa ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq hadalka wasiirka ayaa u muuqda mid jawaab u ahaa codsi uu shirkaasi ka jeediyay wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlange kaas oo dalbaday in la qafiifiyo xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya haatan ka sii daraysa dowladda federaalka Soomaaliya 29kii bishii November dalka ka saartay safiirkeedii Kenya u qaabilsanaa Soomaaliya iyadana u yeeratay keedii joogay Nairobi dowladda Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay soo farageliso arrimaha gudaha Soomaaliya isla markaana ay madaxweynaha Jubbaland ku cadaadinayso fashilinta heshiiskii siyaasadeed ee laga gaaray doorashada Soomaaliya inkastoo Kenya ay iska diiday eedaasi dowladda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba xiriirka u jartay dowladda Kenya isla markaasina ganacsiga ugu xoogganaa Soomaaliya u soo dhoofin jirtay jilbaha dhulka ugu dhuftay halkaasina bil walba 4 milyan 5 milyan oo dollar khasaarayaan shacabka Kenya iyo dowladda Kenya si kastaba ha ahaatee lama oga xiisada Kenya iyo Soomaaliya halka uu ku dambeyn doono wararka qaar waxa ay sheegayaan haddii wax walba ay ka ogolaato madaxweyne farmaajo dowladda Kenya inuu qafiifin doono isla markaasina sida la wada og yahay 13 bishaan wixii ka dambeeyo dalka fiisaha ayay ku soo gali doonaan muwaadiniinta baasaboorka Kenyaatiga wata ee imaanaya gudaha Soomaaliya
xog xasaasi ah dagaal xoogan oo caawa ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya iska horimaad iyo qaraxyo caawa ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho sida wararka qaar kala duwan ay kasoo baxayaan iska horimaad ayaa caawa degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya iyo dabley hubeysan wararka ay intaasi ku darayaan in iska horimaadka uu bilowday markii rag hubeysan oo gaari wata ay isku dayeen inay xoog ku jiraan bar kontarool oo agagaarka ex carwa iidka u taalay ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya rasaas culus ayaa lasoo sheegayaa inay isweydaarsadeen labada dhinac iyadoo sidoo kale la maqlayay qaraxyo loo adeegsaday bambaanooyin ay adeegsanayeen dableyda weerarka soo qaaday warar kala duwan ayaa kasoo baxaya cidda ay ahaayeen dableyda weerarka fulise kuwaasoo qaarkood sheegayaan inay ahaayeen koox galbinaysay qaad si sharci darro ah kusoo galayay magaalada muqdisho halka warar kale ay tilmaamayaan inay ahaayeen ururka al-shabaab islamarkaasina iska dhigayay ciidamo kale xaaladda ayaa ah mid degan inkastoo goobta ay xireen ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya welina ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaasi dhinaca kale rag hubeysan ayaa lasoo sheegayaa inay isla caawa bambaanooyin ku tuureen xarunta waaxda barwaaqo ee degmada warta nabadda si kastaba ha ahaatee warar kale ayaa kasoo baxaya dagaalka ayaa waxa uu ka socda meel u dhow ama uu ka dhacay carwo iidka ee kala qaybiya degmooyinka howlwadaag iyo wardhiigley ee magaalada muqdisho waxaa goobta uu dagaalka ka socday laga maqlayay rasaas fudud iyo baasuukayaal ilaa iyo haddana ma cadda cidda sida saxda u dagaalamaysa waxaana jira khasaare halkaasi ka dhashay wararka qaar waxa ay sheegayaan in dagaalka uu u dhexeeyey rag hubeysan oo watay gaariga kuwaasi oo isku dayayay inay awood ku maraan bar kontarool hase ahaatee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo halkaasi ku sugnaa ayay fowda isdareen sidoo kale warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in rag hubeysan ay dhowr bambaano oo gacmeed ku tuureen xarunta waaxda afraad ee barwaaqo ee ka tirsan degmada warta nabadda ee gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horeysay ciidamo isku dhacaan islamarkaasina magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii u dambeysay kusoo badanayay laba ciidan ama ciidanka iyo ciidamo kale ay si toosa isku dagaalaan islamarkaasina waxyeelo xoogan iskala gaarsiiyaan dhinaca kale hirshabeelle oo ku dhawaaqday diyaarinta ciidan la dagaalama ururka al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada oo looga hadlayay arrimo dhowr ahi madaxweynaha ayaa warbixino ka dhageystay wasiirada sii hayayaasha ah oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga caafimaadka boostada iyo isgaarsiinta gargaarka ganacsiga iyo wasiirka duulista hawada ee maamulkaasi hirshabeelle afhayeenka maamulka hirshabeelle daa'uud xaaji cirre oo kulanka faahfaahiyey ayaa sheegay in la isku raacay in hirshabeelle ay yeelato ciidamo daraawiish ahi oo la dagaalanta ururka al-shabaab waxa uu sheegay in degmooyin iyo deegaano ka tirsan hirshabeelle ay weli ku sugan yihiin xubno ka tirsan al-shabaab hase yeeshee hirshabeelle qaadi doonto howlgallo looga saarayo ururka al-shabaab 4 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ka dhacayay weeraro ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin iyo askar waxaana jirin tallaabo dhanka amniga ahi oo ay qaadeen madaxda hirshabeelle dhinaca kale dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday qorshe lagula dagaalamayo musuq maasuqa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in ay bilaabayaan qorshe loogula dagaalamayo musuq maasuqa ka jira dalka si dadka Soomaaliyeed cadaalad loogu shaqeeyo waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in hay-adaha kala duwan ee garsoorka dalka ay ku howlan yihiin ka hortagga musuq maasuqa isla markaasina ay ka go'an tahay inay la dagaalamaan wax kasta oo keeni kara musuq maasuq sidoo kale waxa uu sheegay wasiir jaamac in haatan uu socdo qorshaha dhamaystiraya xubnaha guddiga la dagaalanka musuq maasuqa wixii xilligaasi ka dambeeyana dowladda dhexdeeda lagala dagaalami doono musuq maasuq iyadoo oo la kaashanayo hanti dhowraha qaranka iyo xeer ilaalinta hadalkan ayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac waxa uu ka sheegay shir looga hadlayay la dagaalanka musuq maasuqa oo ka furmay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya